بسم الله الرحمن الرحيم. قدومية برلمانكا مدحوينها دول سوماليد بوntland مدحوينها دول goboleedka galmudug madaxda ahlu sunna wal jamaa wasiirada xildhibaanada ambassador mahiga walaalaheena reer Jabuuti oo hogaaminaya Mr. Xamud saaxiibada bulshada caalamka ururada bulshada dadweynaha reer Puntland dadka reer Garowe mudanayaal iyo marwooyin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندنا وحنا قبل قدوميها آدم وما عندنا عينا ذكر يا بودلان سودوين تقيمها لهاي آدم ونعسني المو سودويين عاصمة ما بندوراتك بودلان جروة الشركة دي صار سبعة مش دمجوها شركة جروة 1 ويكسر بحين qodobadii muhiimka ah ee la magac baxay Garowe Principles kani waa dhamaystirkii intii ka dhimanay arrimaha dastuurka ee ka mid ahaa qodobadii ugu muhiimsan ee road map muhiimadda gaarka u leeyahay shirkan waxa weeye waxaa laga hadlayaa laba ajenda aad u waaweyn mid waxa weeye systemka federalismka oo ay Soomaalidu isku raacday inay qaadato in laga hadlo la qaadaa dhigo la isku raaco keeba ugu wanaagsan Soomaaliya oo ay qaadan kartaa wala isku raacay dawlad federaal nahay laakiin maadaama dastuurka la qorayo in la isla fahmo qaabka federaalka ee Soomaaliya waa kalabaad waxa laga hadlayaa qaabka dawliga system of government baa laga hadlayaa marka laba qodob oo ka muhiimsan ma jiraan sababtoo ah waa laba qodob taabanaya masiirka dalka waxa loo baahan yahay marka faham dhab ah intii laga yeesho haddana waxay ka yiraahdo marka habka federalismka maxaa Soomaalida dan oo ugu jira federalismka ciladaheeda la sheego weeye kulay marka waxaan aaminsanahay systemka federalismka xiris waxa weeye nidaam kastoo dawli ah waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofka shakhsiga ah xorriyadiisa sovereignty of the individual qofka Soomaaliga xorriyadiisa ayaa rabaa in uu dastuurkaas ilaaliyo dawladdu marka waxay leedahay awood ay qofka ku dhibaateyn karto wayna cala dawladda badan oo soo maray Soomaaliya in qofka la dhibaateeyo qofka Soomaaliga rights-kiisa lagu xadgudbo marka si loo xakameeyo baawarka dawladda ayaa waxaa leeyahay waa in la qaybiyo awoodda dawladda si siman in loo qaybiyo oo maxay tahay inuu jiro separation of powers inay jirto hay'adda sharci dejinta hay'adda maamulka iyo hay'adda cadaaladda si siman loo qaybiyo marka dad badan waxay qabaan intaas inaysan ku filayn si loo ilaaliyo qofka shakhsiga xorriyadiisa marka dad waxa la yiri baawarka dawladda si vertical ah noo in loo qaybiyo ay jirto dawladdii sare dawladdii dhexe iyo local kaleja horta muhiimadda ujeedada conceptual in la fahmo waxa weeye maxaa dano ku jira federalism intaa weey inaan loo qaadan federalismku inuu yahay goboleysi inuu yahay qabiilo isu tagay inuu yahay regionalism iyo kalaan iyo qabiilo ku beesgaas inaan loo fahmin weey muhiimadda intaas weey inta laakiin saayada loo fahmayo marka in laga fakaro waa qaadanay keemaan lagu hadlo marka constitution-ka marka dhamaystirkiisii ayay ku xidhan yihiin qodobadan waana socotaana constitution-ka wuxuu ka mid ahaa afartii qodob ee road map-ka mid ay ahayd nabadgelyada mid ay ahayd iskaaridda iyo dib u heshiisiinta midna ahayd dowladnimo wanaagga iyo constitution-ka u dambeeya wuu muhiimad gaar u leeyahay constitution-ka dhamaystira maxaa dhacay sababta waxaa weeye waxaan ugu soo foolnay August 2012 oo ay ahayd dowladdan transition-ka inay dhamaato marka afar saddex qodob ay kale nabadgelyada waqti bay qaadanaysaa iska soconaysa waa ongoing wax iska socda weey maalin badan maanu tagaynaa maalin gool baan xoreynaa ilaahay xamdigiis in badan oo Soomaaliya ka midana maanta xor weeye waxaan ka hadlayaa waxa laga xoreeyay nimankii shaydaaninta ah ee wadanka ku soo duulay midda dib u heshiisiinta
iyo in dawladda iyo gobolladu isgaaraanna laftigeeda waqti qaadanaysaa oo yani hadda ciriiri aan ku jirahay ma jirto waqtigeeday qaadanaysaa maalinka gobol baanu tegayna maanta garow baanu joognaa baritana magaalo kalaanu tegi doona dilaya ta ku xigto dowladnimo wanaagga laguma helo bil laguma helo 3 bilood laguma helo sano waqti qaadanaysa way soconaysaa laakiin constitutionka dhamaystirkiisa iyo reformka baarlamaanku ma aha wax sugi kara waqti marka waxaan haysanaa bilo aad u yar saas daraadeed ayay muhiimad gaara arrintan ay usii leedahay maadaama aan rabno in kala hadda urka laga baxo oo la galo dowladnimo taamil la gaaro August 2012 saa markii loo fahmo weeye muhiimadu shirku u leeyahay runtii aad baan u mahadnaqayaa guddiga IFCC guddiga madax bannaan ee dastuurka shaqo fiican bay qabteen meel fiican bay soo gaarsiiyeen hawshii marka hadda inteeda tirada badnayd waxaa qabanaya guddiga la yiraahdo committee of experts guddiga khubarada ah ee dastuurka oo iyana maanta halkaan la jooga ujeedaduna waxaa weeye kama dambaystahay waxaan ku jira 20 sano oo dagaal iyo colaada waxaan kusoo jirnay 11 sano oo ku meel gaara marka waxa weeye waqti dambe ma awoodi karno waxaan rajaynaynaa August 2012 markii la gaaro 2012 constitution cusub oo Soomaaliya leedahay dawlad cusub baarlamaan intaas inaan ku wada gaarno aan dawladnimo taa marka aan ku la diirahay marka intaas ku soo gaabiyo khudbada Soomaaliga ahay waxaan rabaa laba kalmood oo nimankan ajnabiga ah nala jooga inaan ku iraado iyo ogolaataa inay fahmaan baa waxaan leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم Mr. Speaker, President Traore, President Alim, Ministers, Parliamentarians, Minister Hamid of Djibouti, other functionaries in our government, Ambassador Mahiga, our friends from the international community, members from the civil society, the people of Puntland, and most particularly, residents of Garowe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very honored to take part in this historic event, and especially the city of Garowe, Puntland. I will come back to explain why this is a historic event and why Garowe is so significant for me personally. As a government, we have been presented with challenges and opportunities in the last 6 months, with each challenge and opportunity marking an important milestone. We have successfully faced some challenges, especially the famine, which caused loss of lives and properties, and also caused thousands of IDPs to pour into the major cities. We also took on the challenge of Al-Shabaab's insurgency in the middle of Mogadishu and successfully drove them out of the city in August 2011 with the help of our AMISOM partners. And we are in the middle of recovering large swaths of land and territory that have been in the control of extremists until now. We have turned some of the challenges into opportunities. Since 2000, successive transitional governments have been presented with shopping list of deliverables, numbering close to 20, from security, peace, good governance, DDR, healthcare provision, the building of civil administrations, on and on. The list was too long, too unfocused, and too unrealistic for it to be workable. Our strategy in consultation with other stakeholders was to streamline the deliverables into manageable and realistic goals and encapsulate them into a concisely mapped out roadmap with clear timelines and benchmarks. As you know, the 4 goals of the roadmap are political outreach and reconciliation, completion of the constitution-making process, delivery of good governance structures, and security. We are here today to move forward on the constitutional front, the biggest commitment that my government has made. Together with our stakeholder partners, it's the commitment to end the permanent transition that we have condemned ourselves to for the last 20 years. Imagine a transition that lasts 21 years. You will agree that a permanent transition is a contradiction in terms. A transition must have a prescribed beginning date and an end date, and the term ought to be short in duration, not in our case. Everything in our lives has been and continues to be in transition. Our lives are in transitions of refugees, civil wars, human displacement, and human rights violations. Our children, those in refugee camps, and those in exile are in transitions. The largest and most permanent of refugee camps in the world is Dadaab,
a camp that started as a transitional camp in 1991, has now become a metropolitan city, now entirely for its abject poverty and inhumane conditions. Our governance structures have been in flux and in state of transition for 21 years. And this government I'm leading is also a transitional government. To me, this constitutional process represents the possibility of a new beginning, the possibility of the Somali people to say enough to transitions of the personal kind and those of government institutions. I appeal to you all to put your heads together in the next few days and come up with creative solutions for the few open questions and outstanding issues so we can bring this transition to an end. A society that's in endless transitions cannot plan for a sustainable future, cannot have a national economic planning regime, cannot aim to provide acceptable levels of services for society, cannot aspire for a peaceful community that's at peace with itself and at peace with its neighbors. We must end this transition, and the means to end is clearly provided in the roadmap, an agreement that we all committed to in September 2011 in Mogadishu, and most particularly in Garowe Principles of December 2011. We collectively developed the Garowe Principles at our first constitutional conference held in December 2011. Today, they serve as the key guiding document to ending the transition. We are gathered here today to kick off our second constitutional conference. In this conference, a key outcome that's expected of you is how to operationalize the Garowe Principles and to inject some clarity into how these principles will be implemented. Additionally, we must finish discussing the outstanding issues in our constitution, such as federalism, how we will share resources, and the form of government we will create in the next political dispensation. I started my speech with a reference as to why Garowe is also symbolically important to me. Here's why. A few years ago, I began volunteering at this very university, PSU, during my summer vacations. And today, the same university is hosting a national agenda, which I am an important part. It is historic for me on personal level. It's also historic for the students I taught in here. I also hope that it will be historic for one more reason of national importance. There is much work to be done and little time. Let's come together and finish the constitution process to build a bright future for the Somali people. We are in the home stretch. We already have a draft constitution that has been developed over the last 5 years by our independent Federal Constitution Commission. They have done an amazing job, and we thank them for their significant role. Today, the draft constitution is being reviewed and harmonized by the committee of experts who are here today. By the end of April, we will have a final draft constitution. As I said, we are all in the final stages, and Somalia's bright future lies ahead of us. Thank you all for your presence here. Thank you for your having.